كل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhowow barnaamijka dhambaalka qur-aanka. barnaamijka la magac baxay dhambaalka qur-aanka waxaan kaga waramnaa aayado ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka. aayaddan dul joogsanayno qaala tacaalaa fafiruu ila allaah, u yaaca xagga alleh, u yaaca waxa uu alle jecel yahay, u yaaca cilmiga, u yaaca daacadda alleh, u yaaca dikriga alleh, u yaaca towbadda. carar walboo lagugu qasbaa waa fulaynimo, balse u cararka xagga alle waa geesinimo. orodka aad alle ugu tegtaa waa guule maaha guuldarro, waa go'aan qof weyn ee maaha go'aan qof taag daran. geesinimada waxaa ka mid ah xumaanta ood faraha ka qaaddo adigoo samayn kara waa geesinimo. dembi kasta aad ka soo laabato adigoo ka murugaysan waa geesinimo. bustaha ood tuurto si aad ugu kacdo salaadda subax waa geesinimo kale. sidaa daraaddeed geesinimadu kuma koobna uun muruqyo waaweyn oo keliya. cabdilaahi binu cabbaas ayaa fuulay geed, saxaabada ayaa ku qosashay lugihiisa dhuudhuuban. kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi, waxaan ku dhaartay allaha ay naftaydu ku jirto gacantiise, labadiisaa lugood miisaanka ayay kaga culus yihiin buurta uxud. halka allow aad u orodaa geesinimo ah. gebagebo mar kasta u orod halka alleh, u degdeg towbadda. alle waxa uu jecel yahay ka halkiisa u noqda mar kasta.